dadku ka aflaxaanu daabaca tacliin taariikh dalaga iyo beeraha kayaanbada u taabto dhaqaalaha turkina yaale dhaqaalaha turkina yaale كندتي أقونتو تدكو كأفلحانو تابع تعليم تالي dalaga iyo beeraha kayaanbada u taabto haddaba waxaan kor istaagayaa dhisidii Puntland dhisida Puntland maxaa ujeedadeedu ahayd ujeedadeedu waxay ahayd dadkii ka tegay goboladaas markii hore oo goboladiiba cilada noqdeen oo koonfur aaday dabadeedna koonfur laguna laayay laguna dhacay wixii firxadka ahaa oo ka soo noqday baa waxay fakareen oo aniga aan hadlaya aan ka mid ahaa firxadka soo noqday baan ku jiray aniguba xamar baan ka soo carar marka waxaa lagu fakeray aynu inagu wax leelano haddaan 7 sano Soomaali raadinaynay oo 97 aan marayno war wax soo socda ma muuqdaane wax soo socdo Soomaali israacda raba ma muuqdaane bal horta inagu aynu sal aan ku fariisano sameeyno inagu meel aan dadna ugu yeeri karo inaguna bal waxaan nabadgelyadeena ku ilaashano ama gudaha noqoto ama dabada aan sameysano sidaas lagu abuuray Puntland samayskeedina sidaas oo ahaa dabadeed bayska asaaska markii la dhisay hadee waxay ahayd maamuladii dhalanayo kala dambeeyay inay halka dhagax saaraan halkaas kor loo socdo gacanna Soomaali lagu raadsho gacanna wadankii lagu hagaajiyo lagu horumariyo marka maamulkaas labada nin oo ugu horeeyay oo maamulka isaga dambeeyay oo Cabdullaahi Yuusuf iyo Cadda aha iyagu waxay la kulmeen xilli bilow abay ahayd xilli bilow ah marka in maamulkii uu kala firdhin oo la hayo oo lagu guuleysto inuu lagu hisa ku istaago wuxuu oo xasilo wax ka badan oo badanba kuma ay dari karin maamulka saddexaad oo ku soo xigay wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Faroole wax kasta oo khaladaad kale oo iyo wax kasta oo la tabanayo ha jireen wax bays ah oo maaragtay dawladnimo ah oo nidaam ah oo asaas ah Cabdiraxmaan waa sameeyay haba laga dhib sheegto oo dadwadkiisa iyo qaniyadiisa iyo shidadiisa ha laga dhib sheegto laakiin wax baysa waa sameeyay Cabdiraxmaan Faroole laftigiisu in kasta oo ay xilligiisii bilaabatay arrintan dhibaatada la xalin la yahay laaluushka ku faafay maamulka ku faafay oo baarlamaanka ku faafay oo noloshii oo dhan kharibay xilligii Cabdiraxmaan baa waxaas bilowdeen haddana bayska dawladnimada ana asaga bilaabay oo wax sameeyay inay samaysmaan hay'ado dawladeed inay samaysmaan wax nidaam asaas ah asaga sameeyay dabadeed halka markii Cabdiraxmaan tiisi soo gudubtay groupkii dhibta badnaad oo Aaranjaan la oran jirayna samaysmeen oo maaragtay noqday dhibaato ku dhex jira maamulada ku dhex jira oo musuqmaasuq iyo dhib miirana uu ku dhex samaysmay maamuladii ka dambeeyay waxa batay maadaama wadankii laaluush iyo wax boobid ay ka bilaabatay waxa batay ka danaysiga maamulkii in maamulkii yimaadaaba ku shaqaysto oo ku danaysto baa ka badatay in dadka loo adeego mushkulada marka Puntland ku soo korodhay waxa weeye u adeegidii shacabka loo adeegi lahaa caafimaadkiisa iyo biyaha nadiifka ah iyo waxbarashada ardayda iyo maxaan ku iraahdaa kaabayaasha dhaqaalaha iyo horumarinta miyiga iyo xoolahan iska baaba'aya iyo qabashada biyaha badda ku shumaya ma sanad walba iyo dadka aan haraadka u baaba'aya sanad abaarahan dhacaya iyo dhulkii wada beero aan waxba laga qabanayn iyo badiyo kalluunki iska jiifo ajnabi la gelinayo oo tuuga maaragtay ajnabi boobayso heshiis lagu kula noqonayaan maamulka oo la jirifayo badi shacabkiina wax badi ka soo galaya aan la arag yaani ka shaqayntii horumarka nolosha asaaskeedii ee maamulada laga rabay inay qabtaan waxay ka doorbideen oo uga badnaaday inay ka tabcadaan marka ka tabcashadaas laga tabcanayo oo hadba ninkii meesha jooga oo meeshii raranayo isaga iyo wixii ama uu asxaab leeyahay ama qaraabo la ah arintaas waxay keentay qawad badan bay keentay niyad jab bay keentay
ardadii dhalinyaradii inay ka cararaan wadankii bay keentay iyadoo la howlgelin karay oo shaqo loo abuuri karay xuquuq la-aan bay keentay canshuurta keen bilaa xuquuq adoo ah bay keentay waxbarashadii oo dayacantay bay keentay dhulkii oo dayacmay iyo ciid iyo biyuu xaaqayaan bay keentay reer miyigii oo dayacmay bay keentay noloshii oo dhan oo ka soo kici weyday meeshii bilowgii baa la yaalaa marka halkaa markay marayso maamuladu waxay markaa caado ka dhigteen inay hantida iyagu aruursanayaan iyo kooxo yar oo ku ladnaaday musuq maasuqa inay horumar Puntland uga dhigaan oo Puntland horumarkeed ku tilmaamaan oo Puntland ha loo dabaaldego jiritaankeeda iyo magaciisigeedii fiicnaan lahaa la hoos geliyo koox yar ladnaanteeda in lagula farxo oo koox yar ladnaanta ay haysato caleemo qoyan loo ruxo oo Puntlandba koox yar danteed inay maaragtay miraheedii oo dhan noqdaan xanuunkaasaa soo kordhay shacabkii oo dayacan shacabkii oo qoos ku dhacday cadaalad xumo maaragtay ka dhargay qof shaqo helayo oo ardayga jaamacadda kii ka baxaana shaqo inuu helo adag tahay kii kalena uusan baa cid ka bixisaba jaamacaddii uusan hayn haddii la doonana kuwa badan oo dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe aan waalidku ka bixin karin hooyadii qorax fadhiidana la leeyahay keen canshuurta halkaasaa dayac ka yimi Puntlandna dayacaasaa hadda ku jira dadka shacabka ah oo reer Puntland waa dulqaataan waana dulqaateen waxa ay samaysteen iyo magaca ay la baxeen iyo waxa maamulka iyo wada jirkaas ay u dulqaadanayaan inaan wax gaarin bay u dulqaadanayaan hase yeeshee maamuladii la rabay inay halkaa dadka hore uga wadaan danaysi bay u leexdeen waxayna yeesheen dabeecad u eg wax ku dhex jira wax fiican oo lagama maarmaan ah oo maamulkii iyo jiritaankii ah wax ku dhex jiro ka dhex ugaaranaya oo si la yeelo aan la aqoon gooryaan bay noqdeen oo kale ku dhashay qof marka gooryaanku marar buu wuxuu gaaraa qofka haddii la damco in gooryaanka la dilo la leeyahay qofkii baa la dhimanaya marka war Puntland seebaynu yeelaa waxaan ina ka dul adeeganaya maxaan ka yeelaa dadkii waxay ka baqayaan war weyna ka burburaysaa war inoo kaadsha samirkaasaa lagu jira haddaba caleemaha qoyan inay dhalinyaradu u ruxdo Puntland iyo guulaheeda ma waxay dhalinyaradu caleemaha qoyan u ruxayaan in Puntland la asaasay oo dadkaasi wada joogaan oo taas in caleemo qoyan loo ruxo way istaahishaa oo sax bay ahaan lahayd mise waxay caleemaha qoyan u ruxayaan oo farxadda la wadaagayaan kooxaha dibiray oo dhargay oo dushooda hantida ku tabcanaya oo leh noo mashxarada oo noo soo bannaan baxa oo caleemo qoyan noo ruxa keebaa caleemaha qoyan horta u ruxidoodu u dhacaysaa keebay u dhacaysaa taasaa in la isweydiiya u baahan Puntland marka halkaasay hadda joogtaa waxayna u baahan tahay Soomaalina way isu keeni kari lahayd iyaduna horumar way gaari lahayd haddii dad wanaagsan oo daacad ihi maamulka u qabanayaan oo ay u shaqaynayaan laakiin maamulku wuxuu noqday mid laaluush ku yimaada laaluush ku jooga meeshana ka adeegta dadkiina baylah yahay dhiigana ka mirto canshuurta keen ku haya biyo nadiif iyo koronto iyo cunto iyo daawo iyo midna aanu hayn noloshoodana dan ka lahayn keen lacagta kaliya la leeyahay keen lacagta marka dawladdiina taageera oo ayida oo soo adigaan dabaqyada dhisanaya oo soo adigaan dushayada geela ku tabcanaya oo soo adigaan aseedooyinka wareegsanaya maaragtay intaasoo kilomitiro dhula soo adigaan intaanoo tareelaa dushayada ku samaysanaya ma waxaan kuugu sii kaadinaayo u dulqaadanaa dhiigayaga inaad sii cabtid oo kasii mushtartid maxaan kuugu samirnaa sidaa in la is yiraahday ahayd ceebna ma aha in sidaa la is yiraahdo maxaa yeelay haddaan la isla xisaabtamin dal aan xisaabtan ka jirin waa dadku qaybna waa dhergaysaa qaybna waa baaba'aysaa dabadeedna qaybta dheregtana kibirka iyo dulmiga baabi'inaya ayagana waana la rugmadaa marka Puntland waxay u baahan tahay dad ka dhashay oo indhuhu u furan yihiin oo isla xisaabtan iyadoo la wada ilaashanayo oo jiritaankeeda la wada ilaashanayo ummad fakaraysa oo indhuhu u furan yihiin oo isla xisaabtami karta oo saan maxay u tahay is oran karta ayaa loo baahan yahay waxaana ugu mudan oo arinta laga rabaa jaamacadaha ardada jaamacadaha dhigata professorada jaamacadaha dhiga dadka aqoonta leh saraakiisha militariga oo indhaha leh oo wax bartay dadka inay indhaha furaan
waxbaa la necab yahay iyo waxbaa la jecel yahay laga bislaado laga gudbo loona gudbo in wax la hagaajiyo in la isla xisaabtamo in horumar laga wada hadlo maxaa la qabtay maxaa la hagaajiyey layskuna ceebeeyo rarashada dalka la raranayo loo jeedo maxaa loogu ogolaanaya agaasimayaal iyo wasiiro iyo madaxweyneyaal daara ka hor dhisanaya dadkii oo loo jeedo maxaa loogu aamusay maxaa u dhisanaysaa maa la yidhaaho taasaa maqan in la necab yahay in la jecel yahay waa in laga bislaadaa oo loo gudbaa in la isla hadlo la isla xisaabtamo aad baa u mahadsantiin salaamu ullahi calaykum caafimaadka duunaha daaweeya unku dabagoya cudbaari danyarta u adeeg